waxaa maanta xabsiga loo taxaabay suldaan abshir maxamed ducaali oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal. xadhigga suldaanka ayaa waxaa lala xidhiidhinayaa shir jaraa'id oo dhowaan uu ku qabtay gudaha magaalada boorama, kaas oo uu kaga hadlay uuna sheegay shacabka gobolka awdal inay dhulkooda ilaashadaan, taasi oo la sheegay in dhowaan ay xukuumadda somalilan oo kaashanaysa shirkada ajaaniba ay rabto inay ka qod macdanta noocyadeeda kala duwan, taasi oo uu ku caan yahay gobolka awdal. si kastaba haatee, xadhigga suldaanka loo geystay ayaa waxay warar madax banaani sheegayaan inuu ka dambeeyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil silici, kaasi oo maalintii shalayta ahayd safar shaqo kusoo gaadhay gudaha magaalada boorama. si kastaba ahaatee, xadhiggani ayaa waxaa si adag uga hadlay qaar ka tirsan salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal iyo dhalinyarada beesha uu kasoo jeedo suldaan abshir maxamed ducaali, waxayna ugu baaqeen xukuumadda somalilan in haddii suldaanka xoriyadiisa loo soo celin waayo oo cawaaqib xumi ka dhalan doona arrintaasi. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan sheegayaa maanta dhacdadan lagu xidhay maanta, anigu waa la xidhay odhan maayo, maanta waa xorriyaddiisii helay. dhammaanba gadabuursi way wada xidhan yihiin, way xidhan yihiin. waa dad maxbuusiina, fikirkoogu way xidhan yahay, gacmahoogu way xidhan yihiin, maskaxdoodu way xidhan tahay. taasi waa run. ka ugu rooni waa ka $100 la siiyo ee $100 addoonka lagaga dhigto. waa addoomo. waa alxamdulillah, waa nasiibkeen. ninba meesha isdhigun baa lagu madartay, halba meesha isdhigtun baa lagu gowracaa. innagaa isdhignay halkaa inaa dadkeenna ehlu sharafkaa ehlu karaamadaasa laynoogu hor xidho. waxaa loo wixii suldaanku yidhi ma jire, cisho dhawaysir jaraa'iduu qabtaa lagu xidho uu yidhi war dhulkiinna ilaashada. waxaan leenahay maanta on halka ka caddaynaya, afrika waxay xorowday dhowr iyo 50 bay bilowday xorriyadda. xorriyadnimada horteed markii gumaysigu joogay hal tuug oo qudhacta afrika jiri jiray. tuuggaasi tuugga ama buu ahaayo wuxuu xadi jiray jeebka dadka. tuugga caadiga ah la yidhaa jeebka dadku xadi jiray, shamdadu u xadi jiray, aqaladu u dhici jiray, qof qudhacta wax yeeli jiray. afrika markay xorowdo waxaa ku soo biiray tuug siyaasi la yidhaa. tuuggaa siyaasigu wuu ka duwan yahay tuuggii aan naqanay caadiga ahaa. waa tuug mustaqbalkaaga xadaya, waa tuug dhulkaaga xadaya, waa tuug caafimaadkaaga xadaya, waa tuug wadooyinkaaga xadaya, waa tuug waxbarashadaada xadaya iyo waxyaalo badan oo dhan iyo xadaya. maxay ku kala duwan yihiin? waa tuuggii hore caadiga ahaa waad ishkatayn kartaa, booliiska kula doodooni qaar ood ku samri. kani booliiskii iyo maxkamadii isagaa wato ilaalinayaan, waana tuug. waxaanu sheegaya dadka baadiyaha jooga, wallaahi baan ku dhaartay somalilan markaan ka hadlayo 4 magaalo u waaweynaa jogooyinkii ingiriiska ka hadhay iyo kuwii siyaad barra ka hadhay waa soo dhammaynay. buurihii reer baadiyuhu degayeen inaan dilaalaan dadka iyaga magaaladu maanta isku laynaynaa oo isku haysanaa. haddaad cesho weydiin dadkii indhii ilaahay dhigay ee qarni dhigayow, buuraha baan maanta isku haynaa, ka hadlana lagu xidhayaa. waxaan leeyahay buurihiina ilaashada, dadka reer baadiyaha ah ee xamasta iyo dhalinyarta ku nool dhulkaasi dhulkooga ha ilaashadaan. الرحمن الرحيم. anigu aan Mustafa Cabdilaahi Maxamed waxaan ka hadlaynaa qadiyada suldaanka lagu xidhay. suldaanku wax dambiye ma gelin, wadankuna waa dimuqraadiyad. suntan uu sheegay dawladdu ka boodayna waa sun hore gobolka loogu tijaabisay. wasiirka in adeerkiisa siimoodi sun ka qoday, ma fahamtay? ilaa haddan dadka siimoodi degan ma dhalaan. suntiina way socotaa, weliba dawladdu suntii ma aasin. to kala cusub baa la soo wadaa, tiyon buu sheegay. haddii suldaanka faraha laga qaadi waayana wadanka waa lagu kala guuridee. sida ugu dhaqsiyaha badan loo suldaanka xorriyadiisa loogu soo celiyaa. wax dambiye ma gelin, maalin walba TV-ga oo looga hadlaa. war anagu ma dad la qabsadaan haddaan hadallo, gaal dabo dhulkayga imanayana ma jiro oo ma ogolin. 24 saacadood gudahood suldaanka haddii lagu sii dayi waayo gobolka waxaa ka dhacaysa dawladda ka mas-uula. kii lama soo xidhayo, haddaan dacwoodo laygama qaadayo, hay-adaha loo soo diraa way beeraan. hay-adan waxaan sheegnay dhulkaa dib dambe maaliyad inuu gelin, safaaradaha dhan warqadaan dhigan inayna maal gelin. waa dhul la isku haysto, waa dhul dadkii lahaa laga tirtiray oo dadkani qaateen.
waxa ka badan Soomaaliland uu sameeyay lahayn annagu ma garanayne nabadgelyada ninkii caanaha ku maalayay uu duminayo annagu hadii loo ka tashanayna beenaya natiijadii safarkii madaxweyne ku xigeenka uu ku yimid shalay toole gobolkan Awdal khaasatan magaalada Boorama waxay ku soo gabagabowday canaan uu jeediyay maayirka degmada Boorama iyo xariga Suldaan Abshir oo ahaa meeshii uu socday kolkii hore fikirkiisu ku dhamaanayay bay ahayd arrinkaas ay ku soo gabagaboobay socdaalkii madaxweyne ku xigeenka shalay Boorama uu yimidna aad iyo aad baad u mahadsantiin arrinkaas runtii wuxuu nagu noqday arrin aan noo cuntamayn suldaanku de kulli hadallo waxa weeyaan maxay ahayd de tabasha iyo dhaliil intaba uu sheegay laakiin waxa weeye Somaliland de saan uga baranay anoo ninka dhaliisha u sheegay inuu nin wanaag u sheegay yahay ayaa aan deemoodayni laakiin ninka dhaliishada u sheega nin wuxuu noqday de duminaya oo baabi'inaya marka waxa weeyaan waxaan aanu ku baaqaynaa oo waxa weeyaan aad iyo aad cod dheer iyo cod gaan baa ugu baaqaynaa in suldaanka xorriyadiisii loo soo celiyo sababtoo ah iminka inahan dambe aan dambi u galay amba dambi uu suldaanku galay oo u haynaa annagu ma hayno waxaana dhaliisha ahayn dhaliishuna waxay ka imanaysaa de suldaanka markay dhalinyaradiisii hareeraha wada taagantahay markuu shacabkiisii uu la arkayo waxyaabaha mataqaanaa maanta ka jira de inuu waxa weeyaan maxay ahayd uu de markii hadaladiisii iyo mataqaanaa dawladii saamigii uu ku lahaa uu ka dhex waayay hadduu dhaliile suldaan waxa weeyaan waxaan nahay beelweynta beelaha Baawar Muuse saaka waxa lanagu hor xidhay oo lanagu hor jeeday suldaankaygii Suldaan Abshir Maxamed Ducaale waa masiirkaygii waxa la xidhay waa masiirkaygii waxa weeyaan Somaliland nabadgelyadeeda Muuse bixi inuu ka mas'uuliyo moodaya shacabka ka mas'uulaaday nin walba xaafadiisa qoluu yaala annaga nabadgelyada ilaashana maanta haday marasayna salaadiintii iyo waxa weeyaan halkii masiirkii ugu dambeysay in la xidhay maraso waxa weeyaan wax loo dul qaadan karo maaha haddii 12 saacadood soo socdo suudaanka xorriyadiisa loo soo celin waayna waxa ka dhacna anagu ma garanaa hadaan nahay dhalinyarta beelaha Baawar Muuse iyo dhammaan ummadweynaha ku nool gobolka Awdal waxa weeyaan waxa xukuumadani waxa xukuumadii hore ka xishoon jireen ma garanano dictatorial waxa weeyaan dictatorial baa wadanka qabsaday wixii laga xishoon jiray bay tan ku dhaqmaysaa waxa weeyaan haddii xorriyadiisa suudaanka loo soo celin waayo annaga maanta hadalnooma yaal waxa xorriyadiisa haddii suudaanka Somaliland waxaanu sheegaynaa waxa socday maanta masiirkii ummadda in la naga hor xidho la doonayo haddii xorriyadiisa si degdeg ah loogu soo celin waayo wixii ka dhaca nabadgelyo darro wixii halka ka dhaca xukuumadda ka mas'uul